labadii bishii May sanadkii 2012 waxaa la dilay hogaamiyihii shabakadda Al-Qaacida Usaama bin Laden waxaana dilkiisa sheegtay cutub ka tirsan ciidamada badda ee dalka Mareykanka oo qaaday howlgal qarsoodi ah sheegashadaasina waa tahay xukuumadda Washington doonaysay in la rumaysto laakiin muddo 4 sanadood ka bacdi dilkiisii waxaa wararka caalamka qabsaday war cusub oo ku saabsan qaabkii loo dilay Usaama bin Laden warkaasoo su'aal geliyay sheegashadii ahayd in madaxweyne Obama uu ka guuleystay waxa ay reer galbeedku ugu yeedhaan argagixisada suxufiga gaboobay ee ku guuleystay abaalmarinta saxaafadeed ee caalamiga ee professornimada saxaafadda Seymour Hersh waxa uu soo saaray warbixin qoraal oo ka kooban 10,000 oo kelmadood oo uu cinwaan uga dhigay dilkii Usaama bin Laden warbixinta waxa uu Mr. Seymour ku sheegay in haba yaraatee aan Usaama bin Laden lagu dilin howlgal qarsoodi ah oo ay qaadeen ciidamada Mareykanku haddaba haddii aan ciidanka Mareykanku sidaas ku dilin dhab ahaantii yaa dilay Usaama bin Laden oo Mareykanku ay ku eedeynayeen qaraxyadii 11 Sebtembar ee ay ku dhinteen kumanaanka ruux xogaha ugu dhaweed dilkiisa laga hayaa waxay tilmaamayeen in ninkii koowaad ee ay doonayeen Mareykanku uu ku noolaa xaafad iska degan oo aan dad badan ku nooleyn oo ku taala magaalada Hyderabad ee dalka Pakistan halkaas oo ilaalo iyo korjoogeen lagaga hayay muddo 6 sanadood ilaa la gaaray labadii bishii May oo ay halka xilli habeenimo soo fadhiisteen diyaarado helikobtar ah oo ay saarnaayeen 26 askari oo Mareykan ah inta kadibna iyagoo aan howlgalkooda u bandhigin dawladda Pakistan ay saraasayn socotay muddo 20 daqiiqadood ku dileen Usaama bin Laden kadibna ay degdeg uga baxeen halkaas oo qaadeen meydkii Usaama bin Laden kuna tuureen biyaha badda Carbeed maadaama ay ka cabsi qabeen inay ogaadaan ciidamada cirka ee Pakistan halkaana ay Mareykanku ku sheegeen inay soo gabagabeeyeen raacdadii ay ugu jireen dilkiisa laakiin suxufiga waayaraga Mr. Seymour Hersh waxa uu arrinta u fasiray si sida ka duwan waxaana uu leeyahay howlgalkaasi sidiisa ma ahayn mid qarsoodi ah laakiin waxa uu ahaa mid ay si wada jira u fuliyeen Mareykanka iyo Pakistan waxaana uu ku adkaysanaya in sirdoonka dalka Pakistan ay ogaayeen halka uu ku dhumanayay Usaama bin Laden tan iyo sanadkii 2006 xilliga oo ay xukuumadda Obama la tabaalaysay shacbiyadeeda oo hoos u socotay go'aankii Obama ee ku saabsanaa caafimaadka guudna loo macneeyay inuu yahay fikradihiin toolaaga ayna jireen sidoo kale eedeymo kale oo sheegayeen madaxweyne Obama aanu ahayn nin ku adag siyaasadda arrimaha dibadda waxaana ahayd xilli uu Obama u baahnaa inuu xoojiyo siyaasaddiisa iyo kalsoonidiisa si ay uga caawiso ololihii siyaasadeed ee kula tartamayay musharaxii jamhuuriga Mitt Romney dilkii Usaama bin Laden waxa uu faa'iido u noqday siyaasaddii Obama isagoo shacbiyadiisana kor u kacday ilaa ay ka gaadhay 450 suxufiga warbixinta diyaariyay waxa uu leeyahay Mareykanku waxay sanadkii 2010 ka war heleen in sirdoonka dalka Pakistan ay xireen Usaama bin Laden isla markaana Mareykanka oo aan wax xog ah oo la taaban karo oo ku saabsan Usaama bin Laden ka helin baaritaanadii ay ku sameeyeen raggii Al-Qaacidada ah ee qabqabtay ayaa ugu dambeyntii waxay gacan ka heleen sarkaal hore looga saaray sirdoonka Pakistan kaasoo u sheegay Mareykanka halka lagu hayo Usaama bin Laden kadib markii uu qaatay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $25 milyan xilligan waxaa dhacday ayuu leeyahay suxufigu in Mareykanku kaga xanaaqeen saaxiibadooda Pakistan inay ka qariyeen macluumaad aad u muhiim ah iyagoo ugu hanjabay Pakistan inay cunaqabatayn ku soo rogi doonaan taasina waxay keentay in Pakistan ogolaato inay si wada jira u soo afjaraan mowduuca Usaama bin Laden waxaana la qaybsaday hawsha iyadoo Pakistan ay yeelatay calaamadinta iyo xadidaadda booska Usaama bin Laden joogo Mareykankuna ay fulin doonaan dilkiisa sidoo kalena heshiiskii labada dhinac waxa ku jiray in Mareykanku ay sugaan muddo 7 ah ka hor inta aan lagu dhawaaqin dilka Usaama bin Laden kadib markii xilliga la gaarana ay Mareykanku sheegaan in Usaama bin Laden lagu dilay weerar ay qaaday diyaaradan duuliye wadin laakiin habeennimadii dilku dhacay Mareykanku waxay khiyaameeyeen Pakistan madaxweyne Obama waxa uu sheegtay oo ku dhawaaqay dilkii Usaama bin Laden taasoo ahayd guushii ugu weynayd ee Mareykanku gaaraan muddo sanada waxaana howlgalkaasi noqday mid ay faa'iido siyaasadeed uga soo hoyato madaxweyne Obama oo shacbigiisu 18 bilood ka bacdi mar labaad u doortay madaxweynaha dalka Mareykanka